adoo wada iska socda ishaadu sidaas qashin kaaga galo qaladku ugu weyn aad samayn karto waxay tahay inaad gacan sidaa ugu rugtid oo qashinkii gala dhaawac uu ku gaarsiin lahaa waxaaba ka daranba gacanta aad sidaas ula aadaysid si qaladkaas ay u dhicin saddexdan talaabo qaad talaabada koowaad waxay tahay in aad ilbiriqsi baado gacanta la aado ilbiriqsaas dhag 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 ku sii ilbiriqsaas wuxuu sababaa in uu qanjirka ilintaada biyo badan iyo ama ilin badan uu soo daayo sidaas qashinka isha kaa galay oo sidaas u baxo talaabada labaad aad qaadi kartid waxay tahay haddii taas ay kuu suurtoobi weyso ay kuu shaqayn weyso in aad biyo soo qaad aad biyo ku shubtid isha biyo xoog leh ku shubtid tubo ku shub ama inta baaquli biyo ku shubtid isha sidaas ugu shub taasna waxay keeni kartaa wix ilinta ay kaa caawin weyso inay kaa soo saarto in ayada ay ka soo saarto haddii labadaas talaabo uu ku shaqeyn waayo talaabo kale ku shaqeynaysa male midaas macnaheedu waxa waaye in ay ku dhagtay isha meel kamid ah oo laga yaabo xataa marka meel qatar inay tahay isla markiiba waxa isku day labadaas talaabo ay ku shaqeyn weysan dhakhtar indhaha u tagtid si qalab ama si fudud laga soo saaro adigoona marnaba isha sidan u xoqeen adigu wali qashin isha ma ka galay talaabada ugu horeysa aad sameysana muxuu ahaa